أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كان بملك السود جنود الدعالة ذاك جوكتان ملك استي حلك استي انتهي قفل بمجا أي مرتبة دي سأيام كسلامنا ومركله يا ايرو تي في أو إذن سود تبين يا برنامج ديني اللي هلون جاي وإنت بدنات كلا سعوتين برنامج كمان تا إنه هذا ديك دونا وحنا مجا عذرني دورك أقوياء سوماليات iyo kaalinta uu ku leeyahay bulshada dagalka iyo deegaanadaba maanta barnaamijka waxa inoogu marti ah professor Xuseen Warsame oo inta badan bulshada Soomaaliyeed ay ka dharagsan tahay qofka uu yahay professor Xuseen waxa uu inta badan ka hadlaa arrimaha dhaqanka dhaqaalaha siyaasadda iyo waliba sharciyada waa professor ay inta badan Soomaalidu meelo badan ka dheexdeen isagoo ka hadlayo ahmiyadda ay midnimada ummadda Soomaaliyeed leedahay professor waad maqlaysaa Soomaha Faisal waan ku maqlayaa aad baan kugu soo dhaweynaa hadaynu bahda Airo TV na professor su'aashayda koobaad maanta ku weydiinayo waxa weeyaan sideed u aragtaa isbedelka mar kale iyo midnimo ee ka curtay gobolada waqooyi ku soo dhawow Faisal marka hore iga gudoon salaaniga gudoon mahadnaqniga gudoon adig iyo bahda Airo TV ba inaad soo moodaan oo aad soo casuuntaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay marka labaad intaan su'aashaada ka jawaabo Faisal waxaan doonayaa bal marka hore inaan isxasuusino waxaan adduunka ka dhacaya ee duufaanka noqday ee ma garanaysaa caabuqan la yiraahdo coronavirus inaan ka ducaysano ilaahay naga badbaadiyo intii u geeriyootayna uu ilaahay ma garanaysaa naxariistii janno siiyo inta hadda u bogtana oo caafimaad sareeca degdega uu siiyo ma garanaysaa inaan u ducayno waxaan kaloo doonayaa inaan ku dhiirigeliyo dadka Soomaaliyeed ee dhegeysanaya cid kalaba caabuqani wuxuu yeelanayaa arrimo siyaasadeed saameyn siyaasadeed wuxuu yeelan doonaa saameyn dhaqaale wuxuu yeelan doonaa saameyn mujtamac markii uu horreysay dhacdo maaha berigii gargarida loo jeedo dagaaladu jireen waa kii Spanish flu meel walba soo gaaray xataa Soomaaliya soo gaaray dad u dhinteen berigaas 50 milyan oo qof baa ku dhintay 500 oo milyanna uu saameeyay iyadoo dadka adduunka ku nool marka ay ahaayeen 2 bilyan oo kaliya ay ahaayeen macnaheedu wuxuu saameeyay bay ahayd rubuc dadka ilaahay kan kama dhigo halkaas laakiin haddana kulli oo inkastoo hadda dadku waa u diyaar garoobeen kuwa hore wax laga bartay laakiin Soomaaliya haddaan nahay diyaar garowga ay sameeyeen dawladaha halkani ma samayn karno malihin dawladnimadeedii intii ay laakiin malihin dhaqaale xoog la dawladeenu malaha oo dadka halkani annagoo kala waxa caawiye dadka shaqada beelay oo hadda weegi dhaweyd milyan baa Canada kaliya beelay dadka dawladda caawinayso lacag siinaysa taasay marka dadkii Soomaaliyeed waxay ku xidhnaayeen wixii iyagu meelaha ka yar shaqaystaan wixiina waa taas hadda waa la kala xidhay sida darteed dadka banaanka ee jooga waana kuwa awalba Soomaaliya ku badbaaday weeye maanta waxa la inaga rabaa gurmad baa la inaga rabaa qofkii $100 diri jiray 20 ha ku daro kii meel kale diri jiray ciidanadu wuxuu diri jirin oo qaraaba haday jirto ma garanaysaa isku day inaad wax u dayi karto taas ayaa la dhaqaajinayso laga yaabo in bal iyaguna dadaalaan oo ay arinta ka dadaalaan waa gartay haddaba aanu soo galo su'aashaadii oo arkaan raaliga ah oo aanaysaa kaas su'aashaadii ahayd ma garanaysaa ururkan midnimo iyo mar kale sideed u aragtaa Faisal ururkan ma inaanan ka mid ahayn mise in aan la socdo waxa uu yahay kama midihiyo nimankan aasaasay dhalinyaradaas waa dad cusub oo naga da'yar oo da'dayadii hore ee aniga iyo ma garanaysaa raggii hore la yaqaanay ama professor Cabdi Samatraad ama ma garanaysaa ha ahaadaan jaamac yare ha ahaadaan ama ha ahaadaan Axmed Jaamac ha ahaadaan ama Cismaan Kalluun ha ahaadaan raggii hore ma aha raggani waa rag cusub oo dad cusub aan idhaahdo gabdhii ragba oo waliba runtii gabdho hadda ay ku badan yihiin cusub oo nooc cusub weeyaan marka kama midihii oo waa nooc gooriya laakiin mabaadiidooda labada u qaybta qaybooda kow
bal marka hore in dadka Somaliland ku nool ama reewqooyi ba isku sheegaan ama Somaliland ha sheegtaane inay mudan tahay in la mideeyo oo ay si fiican u midoobaan hadda way yara kala baabacsan yihiin oo taana horena waan uga yara hadlay oo wanigi sheegi jiray mawjado inay jiraan aasanay bama maasan wanigi sheegi jiray markii Jubbooyinka ka hadlayay in taa laga digtoonaado iyo laboo ah in Soomaaliya bal ma garanaysaa mar kale dib loogu noqday dadka Soomaaliyeed ee isku baada ee wax isku ah inay bal mar labaad wada hadlaan oo ay heshiiyaan oo dawladnimadii Soomaaliyeed ee 60 sano intay jirtay 30 sano aynu kala maqnayn bal in ma garanaysaa la soo celiyo oo ay dadku wada hadlaan ayaa iyadana ay soo jeedinayaan oo ku dadaalayaan waa dad duwan noocyadii hore oo ah dadkow aan siyaasiyiin sida loo yaqaanay hore aan ahayn wana meelaha ay ka bilaabaan xarakadaha wanaagsan ay ka bilaabaan laakiin dad aqoon leh Faysalow dad aqoon leh oo intaanka ama leaderku ahaado magaraysa Maxamed Baashi ama rag kale hadda ka aan ku ogahay Axmed Ismaaciil nin la yiraahdo Yuusuf oo kamid ah magaraysa Mareykanka joogay iyo rag badan oo halkana oo xataa jabir laga sameeyo hadda jabtiro laga sameeyo Canada ogahay dad magaraysa baabulaya ogahay Mareykanka qaar ba magaraysa cali xiraare oo maalin dhaweyd magaraysa dood u qabanayay oo rag badan oo noocaas ayaa jira marka waxaan qabaa waa urur mabda wanaagsan leh aan mabda oogana si fiican u taageersanahay aan isleehayna wuxuu yimid malaha markii loo baahnaa oo dadku ay isiraahdeen war wixii malaha la filayay ee dawladnimo laga filayay ama haye wal heli karaaye bal dib raadinay sideen qodobka koowaad baan wali ku jirnaa professor Xuseen Axmed Warsame waxaa jira maadaama aad tiri mabaadi'da ay rukumada u ah mar kale iyo midnimo waan taageersanahay waxaa jira nidaamka Somaliland imika ka jira oo garwadeenka uu ka yahay mudane Muuse Biixi iyo group badan oo la aragtay sida Maxamed Kaahin ninka la yiraahdo Maxamed Xaashi ninka la yiraahdo guud ahaan raggaasi darka hore ku jira siyaasadda waxay qabaan midnimadii 60kii in lagu hungoobay dadka reer waqooyiga ama reer Somaliland inay sida hadda yihiin ay ugu badinayso aragtidaasi sidaad u aragtaa adiga waa su'aal sare weeyaan runtaa weeye Faysalow oo marahona malawanka yar hadlaya dadka Somaliland ku nool Soomaaliyeed saddex qaybood boo qaybsamaan qaybi waa qaybta ay hogaaminayaan ma garanaysaa dawladdu hadda dawladda Biixi ka madaxweyne Biixi ka madaxyahay hogaaminayaan ee rumaysan in ay iyagu dabcan dhowr nooc bay isku jiraan oo qaar ma garanaysaa dawlayo systemka inay dhisaan oo dawladnimo dhisaan iyo qaar ay ka tahay sal ka tahay ayaa jira oo way kulli iyaga lafdooda way kala duwan yihiin boqol waa qoladaas qolo waa qolada ma garanaysaa doonaysa inay ku tagno meesha gobollo oo mesela Awdal State waad maqashay ma garanaysaa Maaqli State waad maqashay Khaatume State kuwa kale samaysan waa laga yaabaa oo iyaguna hoos ka jiray marka kuwaasna waxay rumaysan yihiin in waxa ma la iska dhaafo Somaliland iyo waxaas iyo meeshan laga hadlinay iyadoo gobolada la yahay la joogo meeshaas qolo aan ku jiro oo raggan ahmika cusub ay ku jiraan waxay leeyihiin war mayane Somaliland goboladeedii iyo dadkeedii oo dhan isku duuban oo de magacba mar la wada siiyo oo Ingiriiska mar wada gumayso wax la isku wada oran jiro maamul bay mar wada yeesheen maamulka dadku markuu wada yeeshana wuxuu keenaa inay iyaga laftoodu isdhex galaan oo isguursadaan oo wax wada yeeshaan oo hawlo badan oo siba la isku dhex galo reer waqooyi wax la yiraahdo ka soo baxayo dad wax isku ah ayaa ka soo baxay oo si wax isku oo Soomaalidu waxay tiraahdaa geela wada geelu jiro wada jirtaa wada kala jirtaaye intooda asi waganaysa doonay inay magaranayso marka bal marka hore soo isku arkaan walaaloobaan dibadna Soomaalidoodii ay magaranaysa wax la qaybsadaan oo ay baan qaar badan rumaysan marka kuwa ayay rumaysan marka dad nimankan magaranaysa Biix iyo Isla rumaysan iminka anigu runtii canaan badan boo ma hayo oo nimanka 1999
baa loo dhiibay arrintan oo la yidhi sidaabaad yeelaysaa distoor baa loo qoray 2001 si alla saa uga leexdaan arrintaa ma jiro marka hadday madaxweyne biixi oo aan ku tuhmayo geesinimaan ku tuhmayo tii uu muujiyey ninkii la yidhaahdo magara siilaanyo markuu yidhi 2012 Soomaaliya waa inaan la hadalnaa inkastoo distoorku odhanayay haloola halay bedelo uu yidhi ma garanaysaa oo amaradaas aan geesinimo ku tuhmayo biixi runtii ku tuhmayo bataashinimaan ku tuhmayo isleeyahay arrintaa wuu yeeli karaa haddana iyaga kolley dee waxa loo dhiibay arrintaasoo waxa la yidhi kama bixi kartaan marka waxay u baahan yihiin furdaamin marka waxaba laga yaabaa ururka meesha hadda samaysmay dadka kale dhaaqaya salaadiinta hadlay dadka kale hadlay inay furdaamintii u keenaan oo dadku hadduu sidaa doonaya awalna sibay doonayaan maantana sibay doonayaane madaxdoodu kolba siday dadku doonayaan bay ku dhaqaan marka dilada waxaan leeyahay haddii loola tago wa micna loola tago oo dadkaas inay suuragal tahay inay madaxweyne biixi iyo inta garanaysaa ay isleenahay u adag yihiinba inay dhegaysan karaan waayo dadkay barwaaqo u rabaa waa barwaaqo waxa dadku rabaa ee la doonaya marka rajadaas ayaan qabaa anugu Faysalow waxaa jiro aragti baxday waqti aad u fog 60kii markii la tegayay magaalada Muqdisho waxaa la leeyahay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada waqooyi way xamaasadeysnaayeen siyaasiyiintu waxay doonayeen in la sii joogo oo halka nidaam lagu dhiso xamaasadii ayaa xagga lala tagay maanta haddana waxaa jirto aragti mudane biixi iyo gruubkiisa ay aaminsan yihiin oo ah haddii arrimaha Soomaaliya la soo qaado shacabka ayaa haddana xamaasadeysan oo Soomaalinimo diidaya aragtidaasi ma noqon kartaa mid waayaha soo socda ee adag lagu sii hayn karayo bulshada reer waqooyi hadalkaasi waa su'aal meesha ay wax ka jiraan iyagaan dismiss garaynin maalintii dhaweyd ee arrimihii ay soo baxeen inuu madaxweyne farmaajo imanayo Hargeysa ay soo baxeen inkastoo ayna cidina cadaynin aniguna ana weydiin dawladda Soomaaliyeed aanan odhanin miyay jirtaa arrintaasi haddana hadday wax ka jireen oo ku kulmay ma garanaysaa Itoobiya ku kulmay oo waxaa soo dhawaanaya la yidhi dad badan ku kacay madaxweyne biixi oo magana hoos ku kacay si walba ku kacay marka dabcan arrimahaas oo kale waa run oo waxay dhici kareen marka in dadkii iyo dawladnimadii loo ma garanaysaa nimankan madaxda laftigoogii aan u dareeno waxoogaa ma garanaysaa jibnaanho aan aragno bal meesha iyaga la jooga ka imanayaan oo aan la abaabulo dadkii oo dadkan iminka masalanimada hadda soo baxay dadka abaabula waa dadkiiba abaabulayaan oo ay wax u sheegayaan oo ay runtoodii soo ogaanayaan oo ay barayaan waxa aan ka baqaynaa malaha haddaan reer waqooyi nahay inaanay malaha habboonayn oo aynaan dee waa halkii ninkii ma garanaysaa Kennedy uu yidhi waxa ugu weyna laga baqaabiro cabsida laftigeeda ya marka inaan cabsirina bal ma garanaysaa marka ay dhiirid gelin u noqoto madaxduna inay odhan karto war bal waa rune aan horta Soomaaliya la hadalno oo aan wada hadalno midna ogow Faysalow midna ogow marka aan wada hadalno leeyahay inkastoo aniga iyo adiga iyo inteena kale doonaysa midnimaduba aan ku qanacsannahay in midnimadii la ayidi doono haddana waa inay jirtaa possibility ah in qofkan kale hadduu ku qanciyo oo uu yidhaahdo war Soomaaliya iyo Somaliland sidana ugu badataay in nadaaya hadday ku qanciyaan inuu jiri karto inuu waayo lamaba galo gorgortanba lama galo haddaanu jaaniskaasi jirin marka iminka balaadayna haysataa waxa weeyaan distoorkii Soomaaliyeed wuxuu leeyahay lama kala guyi karo distoorkii Soomaaliyeed wuxuu leeyahay lagama noqon karo go'sadii marka waa inay jirtaa dad kale oo wixii intii loo dhibo furdaamiya arrintaas oo la yidhaahdo waran wada hadallo aan isqancinno haddaan walaalahay oo nagu qancin kartaan inanaan ka soo bixi karaynin khaladaadkii dhacay anaan sixi karaynin oo Somaliland ay weligeed ma garanaysaa ee ay noqon doonto dad daba yaala reer kale noqonayso nasiida inay dadku ku qancaan ba laga yaabaa anigu aan naxo maalintaas soo warsadaan ahay laakiin dadku hadday doortaan sida isku raacaan waa la ayidi haddii dadku sida kale isku raacaan ay yiraahdaan war wixii waa la sixi karaaye oo khaladaadkii dhacay waa la sixi karaa oo kuwii meelay kale waa la sixi karaaye aan isku soo noqo haddaana waxaan ka rajaynayaa haddii la yiraahdo madaxweyne biixi iyo inta la socotaba
iyo inay ma garanaysaa arrintaa haddii ilahay yidhahdo ay soo dhoweyn doonaan iyo dadka shicibka. waa hagaag professor xuseen axmed warsame waxaan u gelaynaa qodobka labaad oo ah soomaaliya marka maanta laga eego dhinac kasta waxaad moodaa inay taagan tahay isgoyskii 1960kii hadafka kala gedisan iyo ujeedooyinka gurracan iyo isdiidka iyo bulshadii oo aad mooddo inay qabyaaladii dharye ku karinayaan marka la qiyaaso waxaa la moodaa isgoyskii 1960kii in la taagan yahay haddaan eego gobollada waqooyi dadku qaarna waxay leeyihiin soomaalinimaan doonaynaa oo soomaalinimaanu rabnaa oo midnimaynu doonaynaa qaarna waxay leeyihiin may midnimo lama baahno meeshan kaadi baa loo soo cabay dhib badan baa loo soo maray dad badan baa u soo dhintay maaliya mood baa ku baxay markaad arrimaha isu geyso isgoyskaasi sidee baad u malayn kartaa in looga badbaadi karayo walaahowga iyo dhibaatooyinka qaar la filayo sideese bulshada soomaaliyeed ay u noqon karaysaa mar kale cawo dhalay inta noqdaan ay soomaalinimadooda u wada bili karaan baad u malaynaysaa maasha allah adigaaba horta hordhacagaasabaad ku dhamaysay oo ma garanaysaa wixii runtii murtida ay ahayd ilaa khayra kaa siiyo 60kii iyo maanta sina waa u kala duwan yihiin sina u leeyihiin si waa kala duwan berigaas ma garanaysaa gumaysi ayaan ina haystay laba gumaysi bayna haystay gumaysi baana doonaynay inaan u sheegno inaanay habboonayn inayna dul taagnaadaan oo ay nagana xukumaan annagoo ay suuragal tahay haddaan soomaali nahay inaan isxukumi karro oo weliba ay jirteen markaa in laynoo qaybiyo 5 qaybood oo ma garanaysaa mid faransiis haysto mid etoobiya la siiyey mid ma garanaysaa la yidhi kenya laga xukumayaa iyo mid ingiriisku xukumo iyo mid talyaani xukumo 5 laynoo qaybiyey oo dadku ay doonayeen inay arrintaa intay bal marka hore labo ay mideeyaan laba intay kolba midayn karaan oo jabuutina berigaa dawla ku jirtay oo allahu naxariis maxamed xarbiye raggaasi waa raggii waa kuwii meesha ku jiray ma garanaysaa aad u socday marka horta dhinaca berigaa dee taa in gumaysiga hadda ma jiro laakiin waxaa jira wax kale oo adduunka soomaalida maanta midaynaya oo ah in laga baxo waxa la yidhahdo faqriga cadowga ugu weyne adduunka maanta haystaa ee dadka gumeeyaa ee dadka yareeyaa waa faqriga qof faqri ma leh qof faqri dowladnimo iyo xoog ma leh taana waxa keeni karo horseedu ah dowlad xoog leh oo midaysan in la helo oo intii adduunka midoobi karta isku tegi kartaaba inay isku tagtaa hadda muuqato waa adiga arkay Yurub isku tagaysa noora waa naga isku furan xuduudaha aan lahayn waa naga ilaa xataa ma garanaysaa gaadhayna Mexico gaadhayn marka taasa hadda dabada ka wado waxa la ogaaday 30kii sano soo dhaafay Somaliland waa run oo nabad bay samaysatay intaas haddana dhaqaalaheeda wax macnalo iska bedeli ma jiro Soomaaliya dhaqaalaheeda wax macnalo iska bedeli ma jiro dhaqaale GDP-deena wax soo saarkeenu wuxuu ahaa 1992 2 bilyan iyo bar buu ahaa wax badan isla bedelno maanta yani inaga dadaalayna lacag dirayna iyo ma garanaysa waxaas ka beera 7 bilyan bay hadda soo gaadhay waa marka la isku daro Soomaaliland iyo Soomaali cid walba dawladda yar Rwanda isku mid baan marka ahayn 2 bilyan iyo bar waayagana markay ka soo baxayeen iyagana dagaalkii maanta wuxuu joogaa 30 bilyan ayuu joogaa sababtuna waa maxay dawlad bay heleen midaysa oo tiri wax kastoo soo kala gaadhayba si kastoo isku dilay Hutu iyo isku dilay ma garanaysaa Tutsi isku dilay oo aan boqolaal kun oo gumaada isku dilo isla foolxuna isku dileen ay غير caadi innagana dil غير caadi naga dhacday xasuuq badan baa ka dhacay waqooyigeena oo wax la dafiri kara ma aha cid dafirtaana iyada aqli yar halaakiin waan ka bixi karaa sida Rwanda kale uga bixi kareen baan uga bixi karaa haddaan hal dawlad oo isku muujinay helo oo faqriga la dagaalamo marka taas ayaa maanta runtii oo maalintii ay lahaayeen 3 wasiirada hay tageen maxamed xajiraahi cigaali allah naxariistay xajiraahi nuuriyo cali garaad jaamaci iyo axmed kayse ducaale ay tagayeen London ay soo seexayeen ingiriiska ay ku yiraahdeen hadal kale ha noo sheegin maalintay Soomaaliya qaadato 1 July gobonnimadeeda taasaan annaguna ku dheeranaa isaguna oo markii gatay yiri waa yahay 26 kadib gaarsiinaa idinku saadiyaysan markay dhigto
dadku marka sida ay maanta ugu diyaar ahaayeen maantana dhibaatadaasaa jirta maalinta hore gubaysa kacri yaraysa kacrar baan ahayn maantana waan yarnahay oo waxa ina yareeye faqri ayaa ina yareeye taas ayaan kaga baxaynaa haddaan magaranaysa isku ururno oo aan badaheena ka faa'iidaysano oo waa laynoo baahan yahay adduunka o dhan bayna oon ka faa'iidaysano 2 milyan ee Soomaalida ee wax bartay maanta banaanka joogay la diyaara gacan iyo magaranaysa aqoonba la diyaara ka faa'iidaysano waxaan isla 10 sano soo socda haddaan taas samayno waan dhaafayna wadamadaas taasa وهجاج وحنا كوسي سقينا قيبيه ده برنامجكينا ايرو تي في aad kala socoteen in ugu magac darnay doorka aqoon-yahanka maanta uu martii noogu yahay professor Hussein Ahmed Warsame professor su'aasha saddexaad waxa weeye midnimada reer waqooyi midnimadooda wadada loo mari karo ee ugu sahlan waa maxay baad u malaynaysaa waxa ugu sahlan walaal waxa weeyaan horta waxa la yiraahdaa muxuu yahay waxa koowaad ee ina mideeya muxuu yahay marka hore in laga hadlo weeyaan waxa ina mideeya ugu weyn waa diinteena islaamka waxa ku xiga waxa weeyaan Soomaalinimada inagoo dhan waa run oo inagoo Soomaali haddana waxaanu nahay jaarar baan nahay tolol baan leenahay tolku wax kale ma ahayn dad isku tolan buu ahaa oo intii saddex degtay ee wax wada le ayaa tol la oran jiray tolku ma ahayn dad isku qabiilaaw ma ahayn tol waxa ah reer awdal iyo waqooyi galbeed tol waxa ah waqooyi galbeed iyo togdheer tol waxa ah waqooyi togdheer iyo sool iyo sanaag sidaas dadku isku wada tolan yahay sidaa ay isku tolaayeen isku dhex galeen ay magaranaysa inay yihiin horta inay marka hore isku ogaadaan way taa markay helaan ay ogaadaan inuu waxaasi ka dhaxeeyo ogaadaan haddana waxa loo baahan yahay inuu bini'aadamku cadaalad garto oo waynu naqaanay dadkeennii hore waynu naqaanay waxa cadaaladu tahay waynu naqaanay dhaqankeennii ku jirta cadaaladu laguma raaci jirin qof laguma raaci jirin gardarro cad laguma raaci jirin waxa la oran jiray war ninkaasi gar ma leeyahay ilaahay waa gar ilaahaba allay taqaanay ayaa la oran jiray marka cadaalad haddaas u cuno war waxayna yaraan haysanana aanu qaybsanno si wanaagsan oo hadday dowladnimo tahay inaanu qaybsanno tan labaad waayay is-ilaashadaan xataa haddaan qabiilooyin u qaybsannahay qabiilooyinku waa inay is-ilaashadaan waa inay yidhaahdaan war qabiilkan maanta haddaan ka bursado berre wax iga xumaanaya aan isaga u buriyo masalan qabiilooyinku way kala badbadan yihiin qabiilooyin yaryar baa jira oo dadka ku dhex nool baa jira oo ma garanaysaa aan waxooga la siin haddaad kuwaa waxooga siiso cadaaladdoodii siiso ood cadaaladda helaan marka waxaan qabaa haddii tolnimadaas laga fikiro oo laga fikira waxa ina midaynaya ah war Soomaalinimaa ina midaysa laakiin ma ka heli karaa dadkii koonfurta ma ka heli karaa waxaan uga baahnay waa su'aasha damaan u maleeyaa si wasida isla su'aashan waxa weeyaan waxa jira aragtiyo kala gedisan oo dadka reer waqooyiga lagu dhax beeray kan 1991 wixii ka dambeeyay waxa hana qaaday dhalinyaro aad u tiro badan oo mahigaan ah oo inta badan ku kacaamay nidaamka Somaliland dhalinyarada waxa lagu abaabiyay oo lagu kacaameeyay inay Somalilander yihiin Soomaaliyana ay shaqo ku lahayn ciil calan iyo ciid iyo dawlad gooniya leeyihiin waxa jiro dad dhalinyarada aanan ahayn oo hal door ah oo aaminsan wixii hore la soo ahaa iyo wax maanta la soo yahay iyo wax iman doono labada fikradood sidee la soo waafajin karaa ayaad malayn kartaa waa halkii 60 jirka iyo 20 jirka ay ku garameen labada aragti sidee la isugu waafajin karaa waad isleedahay Faisal waxaan ku bilaabay waxay naga maqanay dadku raadinayaan waa nolol waa dhaqaale ay raadinayaan beri aan 2005 wadankan tagay baa Soomaaliland tagay baa waxay casuumay madaxweyne Daahir Rayaale hal talo ayaa siiyay berigaas waxaan ku yiri jaamacadaad abuurteen iskuulaad dhisteen iskuuladaas dadka markaad dhisto dadku waxay marka hore qofku markuu wax baran isaga iscanaanto yiraahdo waxa maan baranin sida dadka haddaan dhaqaale heli waayo aniga ma garanaysaa aniga waxba sameeyay laakiin markuu wax barto ee uu jaamacada ka baxo wuxuu canaantaa
dad kale oo dawladdu canaanta oo baacmisharigu canaanta oo dad kale u canaanta waxaan ku yidhi madaxweynuhu haddaadan shaqo abuurin oodan shaqo abuur samaynin mawjadaasi dadkaa taagan hargeysa iyo boorami iyo burciya taagan aad wax barteen way idinku qarxi nasiib darro ameesebe kumay qarxin iyaga badahay dadkii ku qarxeen oo adiga arkay in badda lagu qarxay sidii oo magafe iyo badi ka dhigtay marka horta tiiba weli meesha taagan marka labadan waxa ka dhaxeeya waxa weeyaan qofku wuxuu doonayaa nolol buu raadinayaa maanta adduunkay ka wada war qabaan inanka boorama jooga waxa maanta ka dhacaya maraykanka CNN buu kala socdaa internet buu kala socdaa nolol bay raadinayaan markay ogaadaan nolosha inaan u haynin kaa dhegaysan maayaan marka wixiiba hadda soo yaraanayo dadku marka ninkii u keeni karo wixii u keeni kara dhaqaale ayaa keenaya maxay u tagaan dhalinyaradu hadda muqdisho markaan tago waxaan ku arkaa intaasoo dhalinyaraa oo ka yimid waqooyigii oo jooga kuwaanu aan u adeerahay baa ka buuxa oo ma garanaysa halkaa jooga ku shaqala maxay u tegayaan sababta waxay isleeyihiin bille meel uu shaqo ka heshay marka dadku shaqo iyo nolol ayay raadinayaan taasaa midaynaysa lixda jirka iyo ma garanaysa qofkii wuxuu keeni karaa ayay raaci doonaan haddii ilaahay su-aashii ugu dambeysay ee barnaamijkeena ayaanu mudane wax kaa weydiinaynaa waxa weeyaan dastuurka qabya qoraalka ah ee Soomaaliyeed waxaa ku yaala ama uuba u qabya tirmi laayahay maqnaashaha gobolada waqooyi sidee markaa ama ma jirtaa aragti in koonfur iyo waqooyi mar kale loo isu soo hor fariisto oo wax loo wadaago ku soo dhawow horta runtaa weeyaan oo dastuurku waa qabyo oo dadkii aanay laftooda daansixiye baan ka mid ahaa 2012kii ayaan ka mid ahaa waa qabyo ahaa waxaan loogu talagalay haddii la idhaahdo dhowr sano bay ahayd 4 sano marka la filayey in xataa ay haddii la yidhaahdo ay wax badan isbedeli karaan oo loo footayn karo dastuurka laakiin dastuurku ilaa Somaliland lagala heshiinayo weli wuu qabyo ahaanaya si kasta xataa haddii iminka la soo soxada wala saxsaxaya weli qabyo ahaanaya xaqiiq mustaawiyaan oo mar alla marka Somaliland ay soo tiraahdo waan wada hadlaynaayo waxaan doonaynaa markay yiraahdaan dastuurka waa la furay haddii la yiraahdo marka dastuurka yaanu caqabad ma noqonayo wuxuu doonayaa caqabad ma noqonayo waxa caqabad ka weyn in la helo Somaliland iyo Soomaaliya isoo furisto ka heshiyo yiraahdo warlabadeenuba waa kaasoo waan daciifnay oo maanta wax badan ma hayno oo ogow ma garanaysaa Faysalow in yar daarada khadiba oo yar noqday ku soco arrinta Soomaaliyeed laba arrimood laba yar oo dhacdo oo aan dadku wax badan ka soo qaadin laakiin weyn baa jiro ay ana orag mid waxa ay ahayd maalintii u horeysay ee madaxweyne Ali Mahdi uu sameeyay dawladdiisii u horeysay aanu ka fikirin bal inuu marka hore gacanta u haadiyo jabaadihii dagaalamayay oo ay SNM ka mid ahayd oo ay wax la sameeyaan aanu ka fikirin isagu uu mooday inuu dawladdu ku shaqo sameyn karayo taasi wax bay fogeysay talabaadna waxay ahayd maalintii 91dii la isku yimid Burco dadku hadday oran lahaayeen war bal haynoo dambayso goosashadii marka hore in dawlad inaan samaysano oo ka hadallo hadday oran lahaayeen oo maanta baxarkan ay ku jiraan dastuurka ay sameeyeen oranaya dib looma soo noqonay ma jireen oo arrintaas marka labadaas runtii laakiin labada midna muqaddas ma aha oo ma garanaysaa Soomaalidu waa la wada hadli waxaan rajaynayaa haddii la yiraahdo anigu waxaan rajaynayaa haddii la wada hadlo oo maanta xoogana waxaan saarayaa laba arrimood oo ah walaalkay Muuse Biixi oo aan rajo weyn runtii ka qabo oo aan rajaynayo inuu muujiyo geesinimadii uu muujiyay walaalkay Silaay oo muujiyo oo halkii uu ka sii qaado maanta ku dhiirado inuu oran karo bal nimankana waxay ka hadlayaan dhageysto oo ma garanaysa la soo fadhiisto oo si daacadnimo loo wada hadlo mida talabaad oo ah dadka koonfurta la ah waa run oo maanta dagaalo shabaab iyo umuro kale iyo dagaalo xataa sugan iyo lagu mashquulsan yahay iyaga isku mashquulsan bal inay wax ka weyn raadiyaan oo midnimadii Soomaaliya haday oo inay wax ka maqan yihiin ogaadaan oo waxaan qabaa Somaliland ta maqani qayb bay ka tahay dagaalada meelaha ka socdiya rajo la'aanta ay qayb ka tahay rajay gelin lahayd dadka
haddii la yidhahdo somaliland iyo maanta baa rajiba gelaydo waxyaalaha yaryare hoose lagu dagaalamayo ayaa meesha ka bixi lahaa waxay rajo gelin lahayd sool ee dagaalada ka dhacay iyo caynaba iyo meelaha ka dhacay iyo magaranaysa ka dhacayay meelaha dagaalada iyo yareyn lahayd waxaasoo dhammayna dadku rajo weyn baa gelin lahayd ta saddexaad oo ah puntland iyo somaliland iyaga laftoogu daynka somaliland oo haysato puntland inaan la fac ahayn oo in la hadashaba ay tahay inay ahayn haddana sool iyo sanaag in maanta lagu dul dagaalamo oo iyaga ay faqri noqdaan ilain dagaal baa meesha ka socda had iyo jeere oo ma garanaysaa la soo riixayaay maaha taa laftigeeda in laga wada hadlo marka intaa haddii la helo waxaan qabaa soomaalinimadii way soo dhowaanaysaa barwaaqadii aan haysana waa ka faa'iidaysan karaa oo wax badan baan barannay cilmi baan leenahay dekadaan leenahay baacmishari baan leenahay dadka waan ku wanaagsannahay baacmishariga meel walba waan ka samaynay waxaan qabaa 10 sano soo socda haddaan u adkaysanoon candhuuftu dib u noqono midnimo samaysano in la gaari karo horumar degdega oo waxa keliya loo socdo uu yahay waa horumar wax kale maaha wax adduunka u socda iyo faqri laga baxo waa hagaag waxaan kaa weydiinayaa hal mir su-aasha ugu dambaysa maadaama aad ka mid tahay mudanka haldoorka soomaaliyeed caqliga iyo garashada uu yani ilaahay hibada uu siiyey bulshada ku daawanaysa inta ku daawan doonta una badan dacyarta ka yar 30 jirka u heelan doonaysa inay waddankooga barwaaqadooda ay ka faa'iidaystaan hadalkooda uga tagaysa muxuu yahay mudane waxaan uga tegayaa mahadsanidna horta marka hore ammaantaya waxaan uga tegayaa dhallinyarada haddaan soomaali nahay adduunka waxaa lagu qoraa oo nimankii hore ee gumaysi hore qori jireen kuwan iminkana ay qoraan neoliberalism waxaasoo dhan ay qoraan in soomaalidu aanay garanaynin wax dowladnimo la yidhaahdo aanay hiddo u lahayn hiddahoodoo kale uu yahay qabiil iyo midmidhuurtaag uu yahay dhallinyaradu haddii xataa qodayadayadii hore sida aan ahayn dhallinyarada maanta joogta waxaan filayaa inay taa iyagu ka kori doonaan oo ay ogaan doonaan qab soomaaliyeed inuu iman karo oo ay ku dadaalaan qabka qabiilka inta hoos loo yaro dhigo balka soomaaliyeed la raadiyo oo haddii anigii oo kaa weyne aanan dan ka lahayn maanta qabiil adigoo iga yaroo dhallinyaro ahoo wax ka weyn raadinayo adduunka la tartamayaa inaad raadisaba ma aha qabiil iyo iskoobid inaad raadisaba ma aha taas ayaan haddii la idhaahdo ugu soo koobayaa waxaana rajaynaan anu isleeyahay waxbaa hagaagi doona haddii la haydhaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa brofesor xuseen axmed warsame oo maanta marti noogu ahaa barnaamijka aynuugu magac darnay doorka aqoon-yahanka brofesore aad ayaan kaaga mahad celina haddaynu naha bahda airo t v waad mahadsan tahay 100% faysal iyo airo t v intaa ayaynu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii gaarka ahaa ee doorka aqoon-yahanka barnaamijkana waxaa idin daadeen anigo ah suxif abrone barnaamijyadan mid la mid a ayaa idinku soo maqan idam alle waxaanu idin ballan qaadaynaa in aynu isku dayno inaan haldoorka soomaaliyeed meel ay joogaanba rag iyo dumarba inaynu waraysano aynuna ka waraysano waayaha iyo wakhtiga inagu xeeran airo t v waxay idin leedahay wixii tala iyo tusaale ah waxaad inoogu soo hagaajin kartaan airo@gmail.com waxaan idinkaga tegaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu